asalaamu calaykum saxaabta kusoo dhawaada janalka shalay waxaynu kasoo hadalnay IoT ama introduction waxaynu ku sameynay internet of things so maanta waxaan rabnaa inaan sameyno configurationka mana haysano physical device haddii physical device ay haystid si practical ah xaafadda ayaa ku sameyn kartaa laakiin anaga ma haysano physical device-ka laakiin waxaa sameyn doonaa virtual ayadoo laiskugu xiraayo so si virtual iskugu xirno waxaa u baahana inaan soo booqano websitekan loo yaqaano thinkercad akoonna ka sameyso aniga akoonna ka samaystay so wuxuu naga saacidi doonaa intii yacni alaabta ama qalabka physicalka uu naga guban lahaa inaan meeshan ku practice garayno qalabkeena oo sax ah kabacdi aan si manuala u sameyno maxaa la yidhahdaa circuitska oo isku xiran so si aa u samaysid horta waxaa soo booqataa qaybtan designska wuxuu ka kooban yahay thinkerka 3 meelood haddii 3D aad samaynaysid circuit haddaad samaynaysid iyo code block haddaad samaynaysid aniga marka waxaan samayn doonaa circuit meeshaas waxaa ku dhufataa create circuit dooro wuxuu ku abuuri doonaa circuit ku abuuri doonaa soo qalabaadka u baahneed waa kuwana waxaa u baahneed resistor oo dabka ka difaacayo waxaa u baahneed nalka waa qeybo badan yahay haddaa u baahan tahay nal green haddaa u baahan tahay haddaa yellow u baahan tahay meeshaas ka bedeli doontaa push buttonka waxaa loo isticmaala haddii event u dhaco inaa riixdid oo nalka u daarmo ama nalka u damo pointimeter aa jiro asna waa la dheeraynaa waa la gaabinaa capacitor baterigan noocyadan bateriyada arduino microbidaa jiro iyo boardkan oo mar walba loo isticmaalo in qalabaadka lagu xirxiro waxaa jira dc motor waxyaabahan qalabaadka rgb haddii aad u baahnin nal hal kalar shidaayo nalkan wuxuu shidi doonaa kalaro badan uu shidi doonaa rgb iyo rcbg iyo bgrc waxyaabahaas uu shidi doonaa sensorada ultrasonic midkan markii oo qof gacantiis usoo dhaweeyo ama uu dareemo iyo basierkan oo qaylinayo marka intaanoo qalabaada meesha ku jiraan so maanta waxaynu samayn doonaa mid basic ah samayn doonaa sidee loo sameeyaa blink ama nal yani ifayo kabacdina damaayo so kowdar waxaa u baahan tahay arduino inaad soo qaadatid then waxaa u baahan tahay mar walba resistor u baahan tahay si dabka uga difaaco iyo waxaa u baahan tahay nala u baahan tahay so isku aadi meeshan so resistorka mar walba yani haddaa aragtid nal waxaa lagu xiraa qaybtiisa lugtaas gaabana waxaa lagu xiraa resistorka lagu xiraa nalka lugtaana waxaa loogu xiraa maxaa la yidhahdaa kan arduinaha lagu xiraa resistorkana wuxuu ku xirmaa arduino ku xirmaa hadda board iyo waxaas dhan isticmaalayno code uma baahna kan by default waa iska yacni simple waaye rangarey so cashirkeena intaasuu ku egyahay haddii aa wax ka fahantay fadlan janalka la wadaag asxaabtaada janalka noo subscribe garey oo ku maasantaa daawashadaada